caalamka xayawaanaadku waa caalam kale oo labaad oo sideenna oo kale haddii ay nolosheenna la lamaanan yihiin dhibaatooyin iyo mashaakil sidoo kale caalamka xayawaanaadka dhibaatooyinkaas oo kale waa ay ka jiraan oo iyaguna sidii ay u noolaan lahaayeen ayay qaati ka taagan yihiin sababtoo ah xayawaanada qaar ee awoodda badan ama kuwa loogu yeero dilaayaasha ama kuwa wax ugaarsada ee xoogga iyo xajmiga weynba waxa ay mar walba ugaarsadaan xayawaanada ka yaryar ee markaas u arki karaan inay cunto u noqon karaan haddaba barnaamijkeennan waxaan ku daawan doonaa silsilado dagaal ah oo dhex maraya xayawaano kala duwan haramcadka iyo deerada haramcadku waa mid ka mid ah xayawaanada ugu orodka badan haramcadka iyo waxaa isshaabaha shabeelka inkastoo ay ku kala duwan yihiin dhanka baraha sidoo kalena dhanka orodka iyo weliba dhanka xawaareentaba ay ku kala duwan yihiin laakiin sidaa oo ay tahay haddana waa laba xayawaan oo aad isaga agdhow xayawaankan ayaa deerada aad u baadigooba isagoona aad uga hela hilibkeeda si fiicanna u macaansada xayawaankan ayaa wuxuu isticmaalaa farsamooyin badan iyadoo mararka qaar aad arkayso isagoo gurguuranaya si aanu u dareemin xayawaanka kale ee uu weerarka ku hayo in badan ayuu isku dayaa inuu deerada ugaarsado laakiin marar badan ayay u gembisaa oo dadaalkiisii waxay ka dhigtaa hal bacaad lagu lisay laakiin markan iyadoon iska jirin ayuu soo gaaday mar qurah ayuuna qabtay dagaal dhex maraya dibqalooca iyo xayawaankan kale ee dabuurka loogu yeero dibqaloocan madow waa mid ka mid ah dibqaloocyada ugu waaweyn ee ku nool qaaradda Afrika iyadoona dhirirkiisu uu gaarayo 20 sentimitir waxaa lagu tiriyaa inuu yahay mid ka mid ah dibqaloocyada ama haaranada ugu sunta yar xayawaanka dabuurka loogu yeero ayaa markaan dagaal dhex maraya laakiin dabuurku waa xayawaan aad u kibir badan marka ugu dambeysaba inta la qabto ayaa isaga dhanba qadar laga dhiga doonaa daawasho wacan dagaal dhex maraya maska kobraha iyo xayawaanka nemsa mid ka mid ah masaska ugu halista badan ee caalamka waa maska loogu yeero kobraha qof walibana way garanaysaa ayaan isleeyahay oo waa xayawaan halistiisa huwan mararka qaar wuxuu gaaraa 1 fiid ilaa 2 fiid xayawaankan ayaa inta badan waxaa laga helaa kaymaha safana sidoo kalena waa xayawaan aad u sun badan oo meel fog iyo meel dhowba ka soo tuuri kara suntiisa xayawaankan kobraha dagaalka kala soo horjeeda waa xayawaanka namsaha la yiraahdo hana ku kadsoomin xayawaankan abeesooyinka iyo masaskaba aad buu u dili yaqaana mar isaga oo cunto raadsanaya ayuu ku soo dhacay mandiqad uu kobrahu degan yahay markii uu ogaaday in meeshu ay tahay guri uu kobrahu degan yahana saaxiibadii ayuu isugu soo yeeray si ay uga taqalusaan kobraha meesha degan ee ka hortaagan inay raadsadaan waxay cunaan xayawaankii kobraha markii uu arkay inuu halis ku jirana isaguna suntiisii ayuu u qaybiyay xayawaanadii ka soo horjeeday laakiin ugu dambeyn way isku tageen oo way ka taqaluseen dagaalkii dibqalooca iyo caaracaarada haaraanka ama dibqalooca midabkan leh waxaa laga helaa waqooyi bari ee waddanka Brazil caruur badan ayaa loo keediyay in dibqalooca noocaani ah oo ku talaalay suntiisa kadibna ay u dhinteen isagoona dhibaatooyin badan oo laga sheegtay ka geystay waqooyi bari ee waddankaasi Brazil waa halka uu ku badan yahay dibqaloocan ama haaraanka noocaaniyaha waxaana laga yaabaa mararka qaar in dhirirkiisu uu gaaro 7 inji waxa markan dagaalku kala dhaxeeyo waa caarada madow ee badanaaba laga helo dhammaan qaybaha waddanka Mareykanka hubka ugu weyn oo ay ku duusho caaradan ayaa waxa uu yahay sunteeda aadka u halista badan sidaad aragtaba labadan waxaa dhex maraya dagaal aad u xoogan iyadoona caaracaaradu isku dayayso inay ka taqalusto dibqalooca noocaana ee sunta badan inkastoo iyaduba aysan sunta ku yarayn ugu dambeyn dibqaloocu caloosheeda ayuu ka dhex bixinayaa suntiisii inkastoo suntii iyadu ay lahaydna isaga saaqayso marka ugu dambeysana isna uu la dhimanayo